السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراليال ما أنتو حروا قصير ما ركتي ولا لهي ما ركتي أنا وشك يوم ورنتي قصدان قلبي بيتاوتي وراليال مركر روح عنكو بلاويا قفوا الباء وحو كدنتو أم كد من دونا بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى لصوصاري دونا هدو قفك خير كدنتنا ونولش إله وقدمه قفك سبحانه خير كسو كجرب على صوصاريا وراليال قصدان ثام بيكو بلاونيسا ويل ير oo dhalinyaro oo ku nool wadamada mataqaana oo carabta baa waxa way fursad wuxuu helay inuu aado mataqaana fursad wax barasho ah inuu imaado wadamada qarbiga ah gaar ahaan wadanka mataqaana Ingiriiska wiilkan waxa ahayd markiisa ugu horeeyo oo uu la kulmay mataqaana biyo cusub iyo wax cusub iyo magaalo cusub iyo nolol cusub marka wiilkan markuu maaragtay imaaday wadankii waxay noqotay waqtigiisa oo fursad helay inuu baashaalo oo na ka soo fogaaday reerkiisa mar walba la joogay iyo bi'ada islaamiga ah wiilka markaa wuxuu sameeyay jaamacadii buu bilaabay jaamacadii maaragtay markuu bilaabay si caadada ahayd jaamacadaha dhulka qarbiga ah magaalada ah waxa waaya wiilkii gabadhii iyo wiilashay gabdhaha way isla fadhiyaan marka wiilkii arimahan ba markii hore cajiib maaragtay la noqotay markii dambe uu la qabsaday sheekada walaalayaal soo gaabiyo wiilkii soo ku socdo oo dadkii gabdhihii wiilashiis baranayaan ba markii dambe khalad ba ka dhacay wiilkii waa zinaystay ciidan billah wiilkii markuu zinaystay oo zinada markuu saan u dhameystay oo ka kacay ba wiilkii waa murugooday ikhwaani markuu murugooday ilaahay jalla wa ala qalbigiisa wuxuu soo geliyay iftiin yar oo ilaahay wuxuu dareensiiyay inuu dambi galay markaas wuxuu dareemay in ilaahay jalla wa ala uusan u dambi dhaafi karin illa inuu aado meelihii dambi dhaafka laga raadsado oo ah masaajidada markaas wuxuu isdahay meesha uu u laaban kartay waa wadankaaga ka timid wiilkii tigid buu goostay diyaaradii buu soo koray wuxuu u socday marka wadankiisa Sacuudi Carabiya gaar ahaan magaalada Riyaad buu degnaa wiilkii diyaaradii buu soo raacay transit wuxuu ku ahaa wadankii Qatar asagoo transit ku ah meeshii baa maaragtay intii waqti yara oo haystay wuxuu aaday masaajidkii buu soo galay walaalayaal arrin qariib baa dhacday masaajidka soo ku jiro baa wuxuu bilaabay inuu aad u ooyo لأنه wuxuu dareemay uu ka qoomameeyay dambigii uu galay asagoo saan u oynaya baa wiil kale ba intuu arkay buu qariibsaday wiilkan wuxuu ahaa nin kamid ardayda Sheekh al-Imam Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a ardaydiisa buu kamid ahaa markuu arkay ninkan oo weyn liyaab la noqotay ninkan intaan leeg oo weyn oynaay oo barooranayo maxaa ku dhacay bal wuxuu bal weydii markuu baxay oo wiilku u imaaday oo weydii arintiisi wiilkii waa uga sheekay inuu dambi ka dhacay oo zinaystay oo nan aaminsan yahay inuu maaragtay illa maaragtay dambigiisi si kale loo dambi dhaafi maayo illa markii in xuduud lagu oogo oo la dilo oo maaragtay wadankiisa markuu aado sheego kadibna xuduud lagu oogo wiilku wuxuu yiri sugbal wadankii Riyaad ban aadina ma sha Allah taala bal wasi hadii doona diyaaradii bas la soo raaceen wadankii ba imaadeen wiilkii ardayga ahaa oo imaam Ibn Baz rahimahullah ardaygiisa wuxuu yiri walaalkii waxna hada sameeyay hana isdiibin bal insha Allah taala ana maaragtay caawa habeen iska soo seexo bari ana maaragtay jawaab ku soo wici doona arurti wiilkii waa baxay way kala tageen wuxuu yiri walaalkii ku bariyay waxna hada sameeyay way kala tageen wiilkii xaafadiisa buu aaday asagoo oynaya wiilkii kalena ardayga ahaana subaxdii markii la gaaray telefoon buu qaatay wuxuu wacay ninka sheekhiisa rahmatullah alayhi wasi'a rahmatullah alayhi Ibn Baz buu wacay sheekhi markuu wacay waa u sheegay wuxuu sheekhow wiil noocaas baa jiraan la kulmay dambi buu galay zina buu galay marka wuxuu rabaa inuu maartay maxkamadda aado si ay xuduud lagu oogo saasa buu leeyahay maar dambigaaga loogu dambi dhaafi kara bis sheekhu wuxuu yiri wiilkaas waxaad ku tiraada Allah jalla wa ala dambigiisa waa qariyay waxa way yusdiibi oo maxkamadiisan aadin laakiin ha noqoto dambigan dambi ilaahay jalla wa ala saga xaqiisa u geeyin doon ama ilaahay xaqiisa u celin doon waxaad ku tiraada quraanka ilaahay haas ku dhaqo
هنا كماركتي برتو هنا سكول أقوى دي أنت جدك إلهي حق الله هو أرضه هو عرّو منك تلفون بوقع أثقل بشارينا يا ويلكي بو بشاري وأشيء أرنتي إنه مارت شيخ ويلي يونس ديمن لكن أو إلهي مارت وقع لنا عاسي عبادة ذا بس ويلكي وحب الله مارت إنه صلاة ذي جسكته كذا ويل كان لليالك أحمد بلد هاي أحمد وحب الله إنه ماركتي ولا ليال إنه إله جل وعلا عابده وكقوم ميو أو جدك توثنا أو تبت توثنا بو خبصة شيخ اللي كل هرين ولا ليال ما كمل ويل كان أرضيها تلفونك سبا صور دعي تلفونك سمولك صور دعي وفيري وأبو أحمد وصواعي وفيري أحمد وإن شاء الله ناكو مشغول بوها وكوعلن دونا وفيري وكوعلن دونا موسى قوانين أدي قلبتي مركي لجاري بعدنا وحصواعي لو تشي الجوري تلفونك الجوري وذا بصواعي مركو حيث كل أرين باكرة بالوع مركو وعي وحققت أبيه أحمد أبيس مركاسو حيري شيخو وحاول أري وحان تعلانين حافظا نقول ماتت أرين باجرتو بس ويلكو حير إن شاء الله تعالى بعد العشاء إيمان دونا ويلكي وابحي وحو إما هذا قرقي مركو سوق لي والله ليال وحو أركي درين أن عادي إهن وجوه ذاتك مركو فيري وجياش وذا وحكم وقتهم بالرغير يمر فرحة ديار قرقي يقول ذاتك جوا قوي آمسناها والله ليال قف هلا يا مجرين مركاس قرقي مركو سوق لي وسلامي فأبيه ويلك وحيري walaalkay giyo garan ma haysan kuma hada celin karo wuxuu maxaan qabtay oo maxaan sameeyay wuxuu yiri Axmed maanta wuu baxay masaajidkii buu aaday salaad cishaa salaad markuu soo tukaday uu soo laabtay qolkiisii buu galay wuxuuna bilaabay inuu maartay iska sunaysto laakiin qolkii buu wax badan ku raagay marka anagana maartay cabsi darteeda baa albaabkayga garaacnay markuu naga furi waayay baan albaabkii furnay markii aan galnay waxaan la kulannay haddaan ku tusayna soo baxeen wiilkii bay keeneen albaabkii markuu furay garanaysa walaalayaal maxaa maaragtay la kulmay wuxuu la kulmay wiilkii Axmed oo naf ay uga baxday asagoo sujuudsan asagoo ilaahiisa u sujuudsan bay naftii uga baxday laa ilaaha illa allah walaalayaal waaninkii ma garanaysa dambi galay وسبحان الله إلهي عاسي وذنوبته كان أقوى وين أقلي لكن ذنبي إلهي كافو جيبا ذنبي حنو لكن ذنبي أو إلهي حقي سكوع علينا مركي الدرينتينا ذنبي جيش وإلهي جل وعلا ألعبت إذا أنقتي وحاوي ولا ليال وسيد للربو ويل كان وحاوي ذنبي بوقلي أو قلب سدي لكن قف عبادة بدنا مو أن سنهين قف صلاة بدنا مو سنهين قف علم بدنا مو سنهين لكن حود درامين إنه الذنب قال إلهي حقي في البوعاء أو عرّ ولا لشيء كذا ما حنك فائدنا أنا جاي إليك ولا ليال ذنوب بنقلنا ولا له بحن أشياء غير ولا ليال هذا الذنب شيء هذا إلهي مارت إلهي ومارت وكل وجه الذنب قال هذا إلهي بس وجه هنا أخيه أم ولا شيء ودق إن الإله جل وعلا بريد أدو أردد لأنه حاول لما فيرنا هنا واحد كسرنا لانسه لكن عملك كل ما يستريس إنه الله شيء هذا بعملك بالقول صار دونا مركز ذنبي أرجع شيء إلهي كثاء يكافو يعني والإله جل وعلا حقي سا هكوسر دويسو وإله وسو أرض أنت سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.